بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay labada bisha 11 ardayda jaamacadda Balaasma iyo aniga oo macallinkooda ah waxaan booqanay goob shaqo ay ka socotay dhismo oo aan ku practice gareynayna ama aan ku qaadanaynay waxa la xiriiro maadada la yiraahdo concrete technology oo aan u dhigo maanta waxaan tagnay goobtan oo laga shubayo shub slab ama saqafka sare ee guriga shubka noociisu wuxuu ahaa M25 grade-ka waxa la isticmaalayaa habka loo yaqaano batching balantiga inta laga keeno transporting la soo mariyo kadibna la dhigo concrete placing goobtii loo talagalay waxa la isticmaalayaa concrete bump iyo waxa loo yaqaan agitator track marka maanta waxaan arinkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dabadii uga mahad celinaynaa maamulka jaamacadda Balaasma xafiiska xiriirka dadweynaha waxaan ardayda ku dhiirigelinayaa sida ay maanta aqoon kororsigan u sameeyeen inay markasta ugu heelanaadaan ama ugu dadaan waliba geeka baraatiga kaan ka banay magaalada meedel kumid oo shibka soo baraatiga oo una qaadaan geekaydi qaabka shibka oo una shibkaasi walbadan ku faa'iidni walbadan una dheegani theory qaadani geeka baraatiga ahaan han barane Ilaahay maxadara baadee macallimiintan iyo waliba ku lug leh jaamacadda Balaasma oo dadaal badan ka jarta horumarinta ardayda waliba aan ka mahadnaqay dhammaan ardayda macallimiinta jaamacadda Balaasma si isku fayl waliba siilaha mid walba in garab taagnaada ardaydii waxaan halkaan maanta u maalinaa qaadano practical ku saabsan maadada concrete-ka marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka jaamacadda Balaasma oo noo suurtageliyay in aan practical-na qaadano iyo ustaadkina Hanad